Salaamu calaykum saaxiibayaal. Halkan waa kanaalkan oo aad kaga barateen barasho cilmiga kombiyuutarka noocyadiisa kala duwan. Muuqaalkan insha Allah waxaan ku baran doonaa qaabka akoonnada Facebook iyo Google looga saaro baasweerada iskood isku buuxiya. Dabcan markaad isticmaalayso baraha Facebook iyo Google waxaad u baahan tahay user iyo password si aad ugu soo gasho gudaha isla markaana uga samaysata account. Haddaba mar alaaliya markaad barahan ka samaysata account waxaa lagu soo bandhigayaa dalab ah in lagu keydiyo passwordka iyo userka si lagugu fudaydiyo galitaanka barahan iyo qaab adeegsigooda. Haddaba mararka qaar waxay keeni karaan dhibaato in taleefankaaga ama kombiyuutarkaaga uu password ku barto isla markaana markaad gudaha u soo galayso uu si automatic ah isku buuxiyo. Marka taleefankaaga ama kombiyuutarkaaga uu lumo waxaa fududaanaysa in qof kale uu maamulo akoonkaaga isla markaana uu si qaldan u adeegsado, taasoo keeni karta in boostiyo ama muuqaallo aadan raalli ka ahayn lasoo dhigo barahaaga. Dabcan sida halkan ka muuqata waxaan gudaha u soo galay barta Facebook balse kombiyuutarkayga si automatic ayuu u buuxiyey userkayga iyo passwordkayga. Haddii aan login dhahana si toos ayuu ii geenayaa wajhadda hore ee Facebook. Mar kasta oo aan log out dhaho akoonkaygana si automatic ayuu isku buuxinayaan mar kale userkayga iyo passwordkaygaba. Dabcan waadna aragtaa in hal mar ay soo wada boodeen userkii iyo passwordkii aan lahaa, taasoo kombiyuutarku ii keediyey. Haddaba si aan u joojiyo in xogtayda si automatic laygu buuxiyo, marka hore waxaan imaanaynaa saddexda dhibcood ee ku taalla dhanka midig ee qaybta kore. Kadib waxaad ka sii dooranaysaa settings. Kadib waxaad imaanaysaa qaybtan ay ku taalla autofill and passwords. Kadib waxaad ku dhufanaysaa qaybtan ay ku taalla Google Password Manager. Dabcan halkanna waxaa la geliyaa userada iyo passwordada si lamida emailada aad ku isticmaasho platformyada kala duwan ee baraha bulshada. Haddaba si aan Facebook uga saaro userka iyo passwordka uu ii keediyey waxaan marka hore imaanayaa qaybta searchingka. Halkanna waxaan ku qorayaa facebook.com. dabcan waa kana imika kaligiis ayaa soo baxay, isaga ayaana gujinaya oo ku dhufanayaa. Intaa kadibna waxaan gelinayaa lambar sireedka kombiyuutarkayga. Kadib waxaan leeyahay okay. Dabcan halkan waxaa laygu soo bandhigay userka iyo passwordka aan ku isticmaala Facebook. Haddaba si aan uga saaro kaliya waxaan taabanayaa badhanka delete. dabcan imika waa la masaxay oo waa la tirtiray userkii iyo passwordka igu kaydsanaa Facebook. Haddaba si aan u xaqiijiyo in la tirtiray isla markaan laga saaray Facebook userkii iyo passwordkii aan lahaa waxaan ku soo laabanayaa facebook.com. dabcan sida ka muuqata halkan waxaa la masaxay oo la tirtiray gebi ahaanba userkii iyo passwordkii aan lahaa. Si aan u sameeyo xaqiijin dheeraada una hubiyo in marka aan Facebook ka soo baxo kombiyuutarka uu si toos ah u keedinayo daatadayda iyo in kale, mar kale ayaan akoonkayga Facebook gudaha u galayaa anigoo buuxinaya xogta userka iyo passwordka. Intaa kadib waxaan leeyahay login. dabcan iminka waxaa la ii soo bandhigay in la ii keediyo userkayga iyo passwordkayga. Haddii aan save dhaho mar waliba oo aan gudaha u soo galo Facebook si automatic ah ayuu u qaadanayaa userka iyo passwordka. balse uma baahni aniga waxaan rabaa in mar kastaba marka aan soo galayo Facebook aan kaliya gacantayda ku geliyo, sababtoo ah waxaa laga yaabaa mararka qaar in passwordka uu kaa lumo haddaadan in badan isticmaalin ama kombiyuutarka aad ku keediso. Marka si ay taasi u dhicin waxaa aad u fiican mar waliba in xogtaada gaar ahaan userkaaga iyo passwordkaaga aadan ku keedin taleefankaaga ama kombiyuutarkaaga. Marka waxaan leeyahay never. intaa kadib waxaa leenahay log out. dabcan waadna aragtaa iminka in kombiyuutarka uuna soo bandhigin userkayga iyo passwordkayga. markiis hore sidan ayuu u soo bandhigayay balse hadda waa sidan. dabcan markaana waxaan u baahanahay in userka iyo passwordka ku keedsan google.com aan ka saaro isla markaana aan ka masaxo kana bedelo isbuuxinta. waxaan soo furanayaa taab cusub. kadib waxaan ku dhufanayaa qaybtan loo yaqaano Google Apps ama 9 dhibcood ee ku yaala dhanka midig.
kadibna waxaan ku dhufanayaa Gmail. Intaa kadib waxaan dooranayaa mid ka mid ah Gmailada aan ku isticmaalo Google-ka. kadibna waxaad aragtaa in si otomaatig ah lagu buuxinayo password-kayga. haddaba si aan Gmail-kan kaga saaro password-ka waxaan ku laabanayaa qaybta password-rada. kadib qaybta raadinta waxaan gelinayaa google.com. kadibna waa kan hoos lagu soo bandhigay, isaga ayaan ku dhufanayaa oo gujinayaa. intaa kadibna waxaan gelinayaa lambar sirta computer-kayga. kadib waxaan leeyahay okay, waana kan iminka waa la soo bandhigay user-ka iyo password-ka aan ku isticmaalo google.com. haddaba si aan u saaro waxaan leeyahay kaliya delete. haddaba aan xaqiijiyo, dabcan waan aragtaa in iminka password-ka si toos halkan looga saaray isla markaana laga tiray qaybta kaydinta computer-ka. haddaba si aan u xaqiijiyo in marka Gmail-ka gudaha aan u galo uu kaydinayo password-kayga iyo in kale, marka hore halkan password-ka ayaan buuxinayaa. kadibna waxaan leeyahay next. dabcan iminka waxaan gudaha u soo galay Gmail-kayga. haddaba si aan u hubinno in password-kayna la kaydinin isla markaana laga saaro computer-ka gaar ahaan qaybta Google-ka, waxaan ku dhufanayaa sawirka profile-kayga. kadibna waxaan leenahay sign out. intaa kadib aan doorto mid ka mid ah ciwaanadayda. dabcan iminkana waxaad aragtaa in laysoo bandhigay qaanada password-ka oo maran isla markaana faaruq ah, taasoo macnaheeda ah ama ka dhigan in password-kii laga tiray Google-ka isla markaana kaliya aan gacanteeda ku gelin karo. muuqaalkayda maantana halkaas ayaan ku soo koobayaa. fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalka waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe inoo saarto, sidoo kale muuqaalkan aad like inoo dhahdo. tani muuqaalkan muuqaalka xiga inta aan kulmi doona walaalkiin Cabdirasaaq Cabdullaahi idinku dhaafay sida ay nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.